dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni aynu kaga waraminay xeerka guddida hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 68/2014 waxaynu ka ambaqaadi doonaa xubinta labaad qodobka 27aad kaasi oo ka waramaya diiwaanka heertayeedka Soomaaliland. guddida dhowrida tayadu waxay u samayn doonaan diiwaan ay ku dhan yihiin heerarka tayada iyo wixii dokumenti ama sharciyo ah ee la xidhiidha. diiwaanku waxa uu ahaan doonaa mid bulshada ku heli karto qaabka ama qaababka ee uu qoondeeyo guddigu. diiwaanku wuxuu ku jiri doonaa cinwaanka iyo tirsiga heertayeedka ama wareegtada sharciga la xidhiidha, soo koobid tilmaamaysa inta uu koobsanayo heertayeedku ama xeerka sharciga wareegtada la xidhiidha. guddigu dhowradu tayadu waxay ku hayn doonaan heertayeedka hab danabaysan si loo ilaaliyo dhowrsanaanta dokumentiga iyo sharcinimadooda. guddigu waxa uu awood u leeyahay inuu wax ka bedelo ama ka saaro heertayeed diiwaanka. ogeysiinta heertayeed cusub waxaa lagu saari doonaa faafinta rasmiga ee qaranka. qodobka 28aad ayaa waxaa ku hadlayaa ku dhawaaqidda faafinta iyo hirgelinta waajibka ah ee heertayeed. guddiga dhowrida tayadu waxa uu waajib ka dhigi karaa dalka oo dhan heertayeed ama qaybo ka mid a markuu guddigu gorto in waajibintaasi laga maarmaan u tahay dhaqangelin sharciyeed oo farsamo. markuu guddigu ku dhawaaqayo in heertayeed yahay mid waajib ah waxa uu uga gol leeyahay ka hortegidda dhaqannada been abuurka iyo khiyaamadu ku jirto, ilaalinta caafimaadka bini'aadamka iyo badbaadadiisa, badbaadinta nolosha iyo caafimaadka noolaha kale sida xayawaanka iyo dhirta, iyo weliba xaalufinta ilaalinta deegaanka. guddida dhowrada tayadu waxay dib ula noqon kartaa heertayeed ay hore u waajibisay. guddiga dhowrida tayadu waxay heertayo ka dhigi doontaa waajib iyada oo hubinaysa in mushkiladaha la xalinaya tahay mid sugan oo muuqata, soo dhexgelidda dowladdu tahay mid laga maarmaana, sidoo kale looga gungaadhi karin hadafka laga leeyahay heertayeedka iyadoo waajib aan laga leexleexan karin laga dhigi karo mooyaane sharcigii la xidhiidhay dhaqangel yahay. ogeysiin ku habboon oo hore loo gaadhsiiyey hay-adda ganacsiga caalamiga ah ee WTO. ogeysiinta ama ku dhawaaqidda heertayeed looga dhigayo mid waajib ah waxaa lagu soo saarayaa ama lagu baahinayaa faafinta rasmiga ah ee qaranka iyo weliba ugu yaraan mid ka mid ah wargeysyada heer qaran ee dalka, iyadoo oo si cad loogu caddaynayo in heertayeedkaasi yahay mid waajib ah iyo taariikhda uu dhaqangal noqonayo. ogeysiinta waa in laga helaa magaca lambarka tirsiga heertayeedka, sababta looga dhigay heertayeed waajiba, tilmaanta muujinaysa meesha laga heli karo ama laga dheehan karo diiwaanka tafaasiisha dhammaystiran leh ee guddiga dhowrida tayada, marjaca ama tilmaanta sharciyada loo cuskaday waajib ka yeelista heertayeedka si waafaqsan xeerkan. ogolaanshaha in ciddii diidan waajibinta heertayeedka uu soo gudbin karto guddiga dhowrida tayada diidmadeeda oo qoraal ah muddo 3 maalmood gudahooda, iyadoo qaabka gudbinta looga faafin doono ogeysiinta. marka uu go'aanku ku dhawaaqidda waajibinta heertayeed qaato, guddiga dhowrida tayadu waxa uu ku daabici doonaa faafinta rasmiga. ogeysiinta lagu baahinayo faafinta rasmiga waa in laga helaa magaca iyo tirsiga heertayeedka waajibka laga dhigay wakhtiga loo qoondeeyey inuu noqdo dhaqangal. qodobkaasi 27aad iyo qodobka 28aad ee aynu kaga hadlaynay xeerka guddida hay-adda dhowrista tayada xubintiisii labaad. intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhigiisa. intaynu ku kulmino waa Asiya Jaamac Ciise iyo anigoo Xasan Xarbiya iyo farsamadii Yaasiin Cabdiraxmaan Cashuur. dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa nabaday.